بسم الله الرحمن الرحيم. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر نور من ثناياه، والبر والبحر فيض من عضاياه، الطير سبحه والوحش مجده والحوت ناداه، والطير على صخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي لا ينساه. وأصلي وأسلم على أفضل من بعث بالرسالة، وسلمت عليه الغزالة وآمن به الحجر، ولبى دعوته الشجر، واشتكى إليه الجمل من شدة العمل، وصبحت في كفه الحصباء ونبع من بين يديه الماء. لذا أقوله روحي بحبك في الضياء تهيم، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، رأيت قلوب العاشقين تميل، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin la qaybsado oo halkan aan ka soo gudbiyo barnaamij la yiraahdo mashruuc at-tamayuz al-ilmi. mashruucan waa mashruuc ay ku mideysan yihiin in ka badan 25 dawladood oo adduunka ka jiro. waa barnaamij loogu talagalay in lagu horumariyo macallimiinta qaabka ay wax u gudbiyaan. waa mashruuc tarbawi ah. barnaamijkan wuxuu bilaaban doonaa 21 bishan hadda aan ku jirno. 4 maalin ayuu socon doonaa, kadib adna bisha kale Agoosto ayuu bilaaban doonaa, hadana ilaa wuxuu socon doonaa ilaa 29ka bisha Agoosto ayuu socon doonaa. dadka barnaamijkan soo gudbinayo waa dad oo maaragtay macallimiin oo adduunka daafiisa kala duwan joogo. marka waa qof walba marka wuxuu qaatay barnaamij ama mowduuc ayuu qaatay oo halkaas ka soo gudbi doono. anigana waxaan ka mid tahay dadka barnaamijka soo gudbi doono. ciwaankayga wuxuu yahay kayfa tu'iddu darsan naajihan. darsi oo guuleystay sidee u gudbisaa maaragtay oo ardayda u gudbisaa. mowduuca aniga aan soo qaatay wuxuu u qaybsan doonaa 3 marxalad ayaa u qayb doonaa. marxaladda koowaad waxaa la yiraahdaa marxalatu ma qabla darsi. darsiga intuusan bilaabanin ka hor macalinka maxaa looga baahan yahay diyaarintii waxaas oo kulli wuxuu ku guda jiraa insha Allah taala mowduuca. sidoo kale waxaa ka mid ah marxalatu athnaa ad-darsi. cashirka inta bixinaysid maxaa laga rabaa maaragtay macaan qofka macalinka maxaa laga rabaa. sidoo kale mid ugu dambayso oo ah marxalatu ma ba'da ad-darsi. darsiga markaad gudbisay kadib ardaydii ma fahmeen macalinka maxaa kale looga baahan yahay. saddexdaas marxalad ayuu maaragtay barnaamijkeena naga doonaa. sidaan hore soo sheegay dowladda waxay bilaaban doontaa 21 bishan oo hadda aan ku jirno July ilaa 24 bisha ayuu qaybtiisa ugu horeyso ay ku eg tahay. qaybta kale waxay bilaaban doontaa bisha Agoosto. mawaadiicda meesha loogu wada hadli doonana kulli waa barnaamij maaragtay macallimiinta qaybta tarbawiinta ayuu quseeyaa. waxaan rajeynayaa insha Allah in ay ka faa'iideysan doonaan macallimiinta khaas ahaan maaragtay macallimiinta Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan doonaan. maaragtay fiiro gaar ah barnaamijkan wuxuu ku bixi doonaa dowladda oo dhan waxay ku bixi doontaa afka luqadda Carabiga ayay ku bixi doontaa. waqtiga uu bilaabanayo waa 2 saac iyo bar habeenimo ayuu bilaabanaa. bisha 21 markay tahay ilaa 4 saac bar habeenimo ayuu ku ogyahay. waxaan lagu soo gudbi doonaa aaladda la yiraahdo Zoom-ka ayaa lagu soo gudbi doonaa. laakiin aniga barnaamijkayga wuxuu bilaaban doonaa 22 ayuu bilaabanaa bisha July. waan la soo horumarsiyay markay tahay 12 iyo barka ama 6 iyo barka maqribnimo bilaabana. wuxuu ku ogyahay 1 saac bar ama 7 iyo barka habeenimo ayuu ku ogyahay. waxaa idin rajeynayaa insha Allah taala macallimiinta iyo dadka walba maaragtay oo kulliyada tarbiya maaragtay ka soo baxay insha Allah waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideysan doonaan iyo madaarista macallimiinta madaarista ka shaqeeyo maaragtay inay ka faa'iideysan doonaan ayaan rajeynaa. waxaan leeyahay maaragtay taxiya li jamiic Soomaaliyiin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.